مللو اللي علو maantan haddii wadaatid adiga qoftaada aad tahayna waxa waaye jawi degan gelaysiin min labo laakiin kii inta imaado kaligiis ee horta caafi sax ninkaas waxa waaye oo ahaad haddee noqoto laba lamaane isjecel dad isgaagaad had isku hayo qaarkood imaan ani laa kaliya soo baxay qof ma ila socdo haddii lamaane la yahay haddii kali la yahay asxaabtayda ay la socoto bay lamaane maay runtii dalxiiska waxaan dhihi karaa waa wax u baahan maskaxda laftirkeeda in hawada la raaciyo aad loo imaadaa aad lagu dalxiisaa si nabdoon oo jawiga degan yahay lagu dalxiisaa wax cabsiina ma jirto wax problem ma jiro Soomaali ciyaalka xaafadda oo hadlana xal yiraahdaa xamar seef waay marka runtii ma la cabiri karo markaad eegto quruxda halkan qofkii yimid kulleeyta ka sheekan kara laakiin waxaan dhihi lahaa waa goob loogu talagalay in waqti lagu qaato lagu dalxiisto isla markaana dhalinyaradu ay kaga nastaan shaqooyinka iyo waliba howlaha kale ee marka toddobaadka shaqada ay markaas ku mashquulsan yihiin xalka maan ee magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku hareeraysan oo labadii sano ugu dambeeyay wax badan iska bedelo ayaa wuxuu suuro geliyay in dhalinyaro Soomaaliyeed oo rag iyo dumar leh ay ku dhiiradaan inay u dalxiis tagaan deegaano fog oo ku yaala duleedka magaalada caasimadda Muqdisho halkan aad kala soo hadlayo waa deegaanka Nimol yiraahdo ah duleedka Muqdisho waxa maanta Jimcaha u soo dalxiis tagay dhalinyaro Soomaaliyeed oo rag iyo dumar isugu jira halkan ayay soo dalxiis tageen jawiguna waa mid aad u qurux badan waqtigooda ay ku qaadanayaan waxaan isoo tabi doonaa xaaladda halkan ka jirta runtii maanta waxaan dalxiis iyo waqti ku qaadanaynaa Nimow Aragududa oo raacsan Koonfur Galbeed Soomaaliya runtii maanta dalxiiskan aan ku sugannahay waa dalxiis aan laga sheekeyn karin dhalinyarada Soomaaliyeedna waxa waaye maalinimada Jimcaha maalmaha kale oo ugu duwan tahay waxaad moodaa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo shacabweynaha Soomaaliyeed inay soo fahmayaan dalxiiska iyo sidoo kale raqbada ama jacaylka ay u qabaan inay dalxiisaan waxa sabab qaataan waxay xadaarada iyo ka turjumaysaa dalkeena waxa waxyaabo u sii gudbay waxa kamid ah dhalinyarada inay maalin baxaya Jimcaha kale inay dalxiis qabsadaan inay soo abaabulaan oo shirkadaha hadda sameystaan oo ku tartamaan xataa dalxiiskii runtii waxa arrin bogaadin mudan waaye dhalinyarada Soomaaliyeedna waxa waa ku bogaadinayna inay dalxiiska halka ka sii wadaan waxa waqti qurux badan u imaadaan waxa hal abuur la imaadaan waxa iyagana ay si balaariyaan runtii dalxiiska waxaan dhihi karaa waa wax u baahan maskaxda laftirkeeda in hawada la raaciyo oo la sameeyo waxa loo yaqaan in waqti la siiyo hawada laftirkeeda nafta laftirkeeda waxa kamid ah waa qayb kamid ah jirka laftirkiisa ku baahan yahay nasiino maadaama nasiinada laftirkeeda qof bini'aadamka u baahan yahay nasiino jirkana waa in la siiyo bahalkii in la hawada la raaciyo si u noqdo qofkii qof asmaskixiyan oo u nool jirkiisana noqdo jir la qabsado dalxiiska iyo arrimaha socodka runtii waxaan dhihi karnaa dadku waxa bulshada meesha ku timaaday waa bulsho dhammaan isku dhaxsan dhalinyaro waxa iyo markii la dhaho imaanshaha meeshaani aad bay loo kala duwan yahay qarax joog ma dhahdaa dad system kale ku imaada ma dhahdaa حتى نحاول ضد هير فدرال ولا ماذا هير شعبين ولا ماذا عد ماشى اللي حاجة ماله قفل بأفرنتاي هو قفل بقول اللي يرى أو دلحيس وبحر إنه كقيم قاته وإماذا جمع أول بنا كل سنة ده أمني جوحات إيكرا بقول كيف بقول واي وأنت أنا نيجي دلحيس كشقينا أما قوبت أنا إيمانها ما أرق وح بالكي مشاكلات أما وح وبالكي أمني درهم أركن ما أنا أركن دون إن شاء الله دلكين ونبت دلكين والصيف noloshii markii ugu horeysay ay maad Aragududan hortii dalxiiskan waxa noo sameeyay sakafa tourism dalxiiskan noo sameeyay runtii dalxiiskan mid laga shaqeyn karo maahan ujeeda runtii dalxiiskan waa mid aad u qurux badan jawigiisa xamaasadiisa wato laga ma shaqeyn karo wallahi shorto inta wadada soo socday sida hadda arkay runtii maanta la bay kala tahay waa mid aad u qurux badan safarkan dalxiiskan soo galnay أنا وشغله وشغلين كنا ما تهدني جو فصح أكو جرنو كنتي أنا ماشان سو أنا حيناتها فرحات جارة وأنا وهم هدعينا ثقافة توريزم الحس كانوا سميه واقع صح فرتني دورس يابو ملاك اللي ودونتها ملاك اللي توزع حمد يبوق يصوحن كنت ما كان هدي وديت هدي خفت هذا تحيني وحواي جو دقينا جلسين من لبلبو لكن كي أنت ما ذو كل جزء فرت عافي صح
ninkaas waxaa waaye uu ahaaday marka walaahi saaxiib waxaa dhihi lahaa dhalinyarteena oo maanta magaalada muqdishona ku sugan iyo waaxigeeda waxaa fiicnaan lahayd jawi haddaa maanta ay heshatid inaa fasax ama firaaqo aa leedahay maalmaha qaar oo jimcada oo kaleeto waxaa fiican inaa naftaada u raaxayso oo soo baxdo dalxiisyada saan oo kaleeta oo jamaca uu yahay oo kaleeto inaad qayb ka qaadato walaalo dalxiiska aad ula dhacsana maasha Allah oo ku faraxsanahay inaan meesha maanta inaad jawiga soo bedeshto magaalada ka soo baxo dhalinyarada quruxda badan aan ka soo qayb galo damaashaadka dalxiiskan igu horeyso waay wax isla ma ahan aad ula dhacsanahay waa soo dhaweynaa waan ku faraxsanahay mar hore maxaa weey ma weeysaa isdhooyaabo mar hore inay imaado ku fikiraabo hadda waxa ka shalayn way halaha ka maqnaa jiray waxa ka imaado warta nabada jawiga aad u deganaa wala qurux safarkeena nabaam oo ahaa wax dhibaato ma jirin alxamdulillah saaxiibada ugu dhiirigelisa dhigi karaa ina soo baxo qorsheyga ma ahayn qofa gadaaliga soo riixay soo tijaabo magaalada maanta soo arag dalxiiska banaanka u soo baxay wada soo bedelo soo tirtay u soo baxay ku faraxsan soo dhaweynaa aragduuda waxa markii ugu horeysa imaanayo waaye waxa sidaa bal qofkan maadaama uu saaxiibadan ay ku wada bal soo tijaabiyo soo arago soo fiiri laakiin waa meel aad u qurux badan oo jawiga degan yahay dhigi karaa wallahi waxaan dhigi karaa wax kasto dhac qadar waa horta hore laakiin waa ku faraxsanahay in meesha imaano jawi ku qaadano dhalinyarada waxa dhila mar walba imaada oo gudis waa loo baahan yahay waxbarasho iskuul shaqo sida loogu jiro dalka maalmaha jimcaha la soo safra dhigi lahaa dalxiiska la soo aad u weyn hadii la maana leeyahay hadii kali leeyahay asxaabtayda asxaabtayda ay la socotay bay la maana may jawiga si walba ku qurux badan yahay la maana kali ma dhigi karno ka saa ku hesho ku qaadagnay may jawi caadi inaan ku qaato way imaadeen wax walba ma imaan aad u weyn waa hubaa bal ka war dalxiiska halka ku soo gaartay saaxiibkii Sooman aad oo maasatahay markii ugu horeysay oo inta ay imaado wiligeey ma imaan sakaafa maanta idaan ciyaaro ma jiraan imaaw isbuuc horta xaafadda ma ka bixin xaafadda iskaga jiray maanta ilaahay qadarina soo baxo wax badan waxa leeyahay miin iyo jaziir iyo doono la TikTok la ku arkaa nin saan wareeja maanta arkay dalxiisku waa ark aan bixitaa waa lakin buskud wax ma khamal ninac loos doolsho moos sokori moos caadi moos bukeeni adduun ana la keenay Sooman aad oo maasanta mar kale si jabi degan lagu imaaday oo farxad ay ku dheehan tahay maanta inkastoo laga nasanayo goobaha shaqada iyo goobaha waxbarashada dadka jabi qurux badan waxay ku soo qaadanayaan goobtan caaw iyo jabi degan haddee noqoto laba lamaane isjecel dad isgaagaat had isku hayo qaarkood imaan ani la kaliya soo baxay qof ma ila socdo waxa galgaadaysa kaliya imaaday sidii ku soo gaaray sakaafan runti shaqo fiican oo wuxuu wadaa oo runti ku dayshaabon maxaa yeelay in hal abuur la imaad aad u qurux badan tahay halka ka sii wadaan dhila wallahi horta ani aragduud tan maanta igu horeys laakiin meel kale aad way jirtaa oo 5 dabaq oo biyaano la koraa oo dheer arki jiray ani tan maanta waxa soo indhay buurta la sheeg soo indhay marka soo arki meela ku ordi karo waay laakiin jabi waxa ku qurux badan tahay horta iskaabul hal qof galigiis ma imaan karo meeshaan waa ku fashil ma isaas cilciilay jabiga aad u qurux badan yahay jabi degan waa sababtoo ah ma laga sheekeen karo jabigan waxa dareem karo qofka magaalada stress ku soo dilay inta loogu talagalay stress inuu ku degsado $6 bisa ka xigta laakiin $6 oo doolsha cunaysid bariis da u socota baawraac la dhiibtay doolshada aad maale bariiska aad maale shaah aad maale aad iyo aad wallaahi horta dalkeena Soomaaliya burbur ma taqaana 30 sano ma taqaana kadib dadkeena Soomaaliya aad u fahmaan dalxiiska hadda si amniga lagu imaadaa wixii ka bilaabanay 2019 ilaa hadda 2024 aad loo imaadaa aad lagu dalxiisaa si nabdoon oo jawiga degan yahay lagu dalxiisaa wax cabsiina ma jirto wax problem ma jiro Soomaali ciyaalka xaafadda oo hadlana xal yiraahdaa xamar seef waay niyow xaqiiqatan dhalinyarada aad waxa u soo jeedinaya goobahan quruxda badan ee ma taqaan naturalka ah meeshan waa ciid cas ama caraguud meeshan aad wax ugu qurxan yihiin sawirada dhalinyarada kale mise ardayda kale aad u imaadaan maalmaha khamiis jimcaha iyagoo ka faa'iideysanaya sawiro bilicdooda sarreeyay iskaga qaadaan aad u qurux badan sawiraasna ay soo publish gareeyaan soo post gareeyaan xaqiiqatan waxyaabaha ka qayb qaatay in labadii sano u dambeysay dalxiiska la fahmo waxa qayb qaatay waxa waaye bulshadii Soomaaliyeed oo fahmaysa dalxiiska
dadkii Soomaaliyeed aad ay u fahmeen dalxiiska bilicdiisa iyo quruxdiisaba in mataqaan laga faa'iideysto aad ay u fahmeen sidoo kale qodobka muhiimka kale waxa amniga oo caasimadu aad u hagaagay oo isagana xusid mudan amnigii oo hagaagay oo xusid mudan wuxuu saaciday in mataqaan dadka aad mataqaan u dalxiisaan bulshada Soomaaliyeed ay aaminaan in dalxiiska karaan waqti walba iyo goor walba iyo goor kastaba marka waxaan dhihi karaa laba shay ayaa sahlay waa amnigii iyo fahamkii bulshada oo aad u kobcay maanta waxaan ku sugannahay nimo waxay qayb ka tahay meelaha dadku ay aad u xiiseeyaan isla markaana markay aad poster sameyso ay dadku soo dalbanayaan waa goob aad u qurux badan sawiro lagu geli karo sidoo kalena kuwa canjawiga marka taasaan ku doortay soomaro aad u mahadsantahay mar kale runtii rabbi subxaanahu wa tacaala ku mahadsan wax walba waxa ugu muhiimsan amniga oo soo hagaagaya iyo dhalintii oo markaasi fahmaysa in dalxiisku uu qayb ka yahay horumarka dalka ayaa waxa markaasi saaciday in dhalinyaradu ay aad u fahmaan inay koox isku urursadaan isla markaana goobaha kala duwan sida balcadnimo ay u dalxiis tagaan taasina waxay dhalisay in dhalinyaradu waqti ay soo qaataan waxaan isleeyahay haddii sidan dhalinyaradu isku sii hoolaan horumar ballaaran la gaari karaa Soomaaliya waxay qayb ka tahay ama waxa ku yaala mid kamid ah dhulalka ugu wanaagsan ee loo dalxiis tago oo nimuba ay qayb ka tahay alamasta Soomaaliya waa su'aal muhiim mudan runtii markaad eegto dalabka dhalinyarada iyo in halkan yimaado halkan runtii waxa jiro dhalinyaro markaasi amniga sugaya oo markii la soo galayaba macnaha tirakoob lagu soo galo iska yimaada halkan waa lis diiwaan geliyaa iyaga ayaana markaas ku shaqale sugida amniga sidoo kalena goobaha kale ee loo dalxiis tagana waa sida amniga markaas dhalinyarada marka loo hagaajiyo ka eegto imaatinka halkan siyaabo kala duwan ee dadku u yimaadaan sidaad aragtay galabta basas fara badan halka yimid marka eegto nimo imaatinkeygii anigu waa markii ugu horeysay perception ahaan waan aaminsanaa meelahan waan ka daawan jiray laakiin markii ugu horeysay aan imaaday waxay ahayd meel aan laga sheekay karin meel carro aad u qurux badan carro guduud ah facilities kala duwan markaas laga helayo marka runtii ma la cabiri karo markaad eegto quruxda halkan qofkii yimida kulleeyta ka sheekan kara laakiin waxa dhihi lahaa waa goob loogu talagalay in waqti lagu qaato lagu dalxiis tago isla markaana dhalinyaradu ay kaga nastaan shaqooyinka iyo waliba howlaha kale ee marka toddobaadka shaqada ay markaas ku mashquulsan yihiin